waxaad maqasheen oo aad arkayseen in shir laga furay Hargeysa loo magac bixiyay qurba joogga Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan doonayaa inaan caddeeyo inaanu shirkaasi ahayn magaca loo bixiyay ee uu yahay qurba joogga kulmiye. waxaan leeyahay xukuumadda ka xishooda dadka magaca uu leeyahay siiya. waxaan joognaa qurbihii wax wara oo aan ka haynaa ma jirto. dadka qurbaha jooga 70% waa mucaarib. ma oga shirka waxna kalama socono aniga oo ah gudoomiyaha xisbiga wadani ee dalka UK. wax wara uma hayno waana meesha ay taageerayaasha ugu badani ay degan yihiin. xog kama hayno markaa magaciina qaata xishooda dadka ka xishooda. shacabka reer Somaliland waxaan leeyahay waxaad ogeydeen in wasiiradii qaranka laga dhigay xoghayaal kulmiye oo waxay u shaqeeyaan ay xisbinimo ku shaqeeyaan oo qarannimadii ay ka doorbideen xisbinimo. waxaan la soconaa idaacaddii qaranka in laga dhigay idaacad kulmiye oo xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ay soo deyso. waxaan ka war soconaa telefishinka qaranka inaanu shacabka reer Somaliland daawan ee laga dhigay telefishin xisbiga kulmiye ah oo xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waxay soo daayaan in laga sii daayo. bale mararka qaar lagaba aflagaadeeyo xisbiyada mucaaradka ah. markaa in qaran lagu sheego ceeb bay ku tahay ummadda. waxaynu hore ula soconnay in madaxweynaha qaranku uu iskoobay oo aan la jeclayn inuu ahaado madaxweyne mucaarad iyo muxaafidba madaxweyne u ah ee uu ka jeclaystay inuu ahaado gudoomiye xisbiga kulmiye. waxaan u sheegayaa shacabka reer Somaliland inay samraan. waxaa soo socota xukuumad wasiirada ay soo dhistaa ay u shaqaynayaan qaranka mucaarad iyo muxaafidba xafiiskooduna uu yahay mid u furan. waxa uu xisbiga wadani soo dhisi doonaa xukuumad telefishinka mucaarad iyo muxaafidba laga sii daayo iyo shacabka reer Somaliland oo dhanba oo telefishin qaranka leeyahay uu noqdo. idaacadda laga sii daayo wakiilada dibadda jooga ay noqdaan wakiilo mucaarad iyo muxaafidba matala oo ku xidhan la shaqeeya qarannimada iyo maalinta qarannimada shacabka reer Somaliland oo dhan si wanaagsan u maamula oo gudiyo mucaarad iyo muxaafidaba u saara si shacabku uu maalinta cududeeda u muujiyo oo maamulkeeda maamul loo wada leeyahay ay u ahaato aanan u saarin xisbiga ay ka soo jeedaan oo keliya. waxaan leeyahay samra waxaa imana doona madaxweyne qaranka u ah madaxweyne ee aan u noqonayn gudoomiye xisbi ayaa iman doona aan dadkiisa kala jeclaysanayn mas'uuliyadda uu kitaabka ugu dhaartay ay u sinaanayaan. marka waxaan leeyahay nimanka wasiirada ah had iyo goor caadaystay in ay af xisbi ku hadlaan ka xishooda qaranka. waxaad masaariifta ku qaadataan ee mushaharka laydiin siiyaa waa qaran. waxaan leeyahay shacabka reer Somaliland u samra. wan yar baa u hadhay kulmiye wuu ina dhaafayaa. kulmiye jadiid wuu ina dhaafayaa.